iskuulka Macmuur Primary Secondary School wuxuu ka mid yahay iskuulaadka ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. haddaba ardayda wax ka baratay iskuulkan ayaa diyaar garow xoogan ugu jira siday ugu guuleysan lahaayeen imtixaanaadka soo socda ee sanad dugsiyeedkan. Salma Abdullahi Abdulqaadir oo kusoo gaarsiis gaar ahaan iskuulka Macmuur Primary and Secondary School iskuulka imtixaanaadkii hadafni kan hadaan kusoo eedan gudooyni hadana wali fadaan intaan kaalin kood ku gal oo kaalmo faylan ku gal iskuulka oo waliba eedin jeelna macallimiintan oo wala barahayan oo hadana ay gaarsiis koowaad ilaa gaarsiis oo hadda heerkaan marahay hadana wali fadaan intaan hore in sii socon oo diin ilaa form 4 jaamacadooyin waliba inta ku rajayna intaan iskuulka kaalmo faylan ku qaabsadaan. Magacayga may baleeray Xanad Maxamed Aadan oo dhigto iskuulka Macmuur Primary and Secondary School oo hadda diyaar garow u soo bixinay imtixaanka oo hanifood leh oo may leeray mid termiga imtixaanka oo hanisood mardhow bilawday. Mariin Midkariin Maxamed waliba rajay imtixaanku imtixaanada kala isku duwanaada oo xiiso gaar ah islahaada waliba rajay intaan gal kaalinta koowaad qof walba oo arday waliba faday inta kaalinta koowaad su'aal may baleeray Maxamed Ahmed oo dhigta iskuulka Macmuur gaar ahaan fasalka form 4 may leeyahay may barajahay sanadkan intee may leeyahay Soomaali kaalan galno barajahay anoo iskuulka Macmuur dhigta oo may leeyahay oo iskuulka Macmuur dhigta arday kale oo geeg form 4 iskuulka dhigta ama walko ka tilmaamay si chatay ahaantay may barajahay hadan sanadkan oo Soomaali oo kaalan gal intii kaalan galno barajahay insha Allah hadii sanadkan dadaalka dheeraadka ah oo macallimiinta idinku bixiyeen bal sanadadii hore sanadkan qeydin kaga duwanta sanadkan may leeyahay iyada macallimiintan faydeyn hadii wal barashadan geeg oo form 4 dhigtaan oo dan iskuulka arday kale oo iskuulka dhigta oo form 4 dhigta ama oo Macmuur dhigtaan form 4 dhigtaan walko ka tilmaamay in shaqada ahaanta. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. San kala magacay may booyaa Miska Cabsalaan Isxaaq ku socoto iskuulka Macmuur imtixaanaadkii foodahan yahay may barajayaan in kastoo arday kasto rajayo result fail kaalinta koowaad iskuulkan may rajayaan ee kaalinta koowaad inta galan mar badan iska jari kaalinta hore aduntaas leen rajayaan. Maxamed Ali Ahmed waa maamulaha iskuulka Macmuur Primary and Secondary School. Maxamed ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay siday ugu diyaar garooween ardaydiisa sanad dugsiyeedkan. tan kale waliba faday intuuna ku marabin Hobland diin iskuulka Macmuur waliba gabi ahaan ma ka baxayana iskuulkan maadooyin shay manhaj waliba horta mostly English waliba aan malaayay magaalada Baydhabo iskuulkan horay oo manhaj English la ka bilaawo ilaa 2011 la tuu manhaj waliba English mostly am sagala badan ardayda waliba ka door bidayana maadada luqada Englishka maadooyin oo dhan ka baxayaan badan ka doordayaan. dhanka kale maamulaha iskuulka Macmuur Primary and Secondary School Maxamed Ali Ahmed ayaa baaq u diray waalidiinta ardayda in aan laga mashquulinin ardayda xilliyada ay diyaarsanayaan imtixaanaadka. intaana baaq andar waalidiinta iskuulkan Macmuur ardayda dhigayaan yaa waliba faday ama gaar ahaan guud ahaan ardada iskoolaadka magaalada Baydhabo dhigayaan yaa waliba faday intaan andara baaq inta gabi ahaanba ardayda inta diyaariyeen mashquul ku dhaaf imtixaanaad la arday imtixaan ku sugo imtixaan ku diyaari hoob waalidku isin meelan dara waliba iska dhabooday ardaygi iyo macallimiinta iska dhabooday maalinkan waliba faday imtixaanaad la diyaari ardaygeena hoob waalidku meelan darsada waliba kanaas aqabad ila xilliga uu diyaari faday hool kale lan darsade marse hoolagaas lan ku yaray waliba fadaane waalidiinta aan ka baagana gabi ahaan magaalada Baydhabo ardayda inta xilliyalka exaamaadka imtixaanaadka la jara ku yarayaan mashquulaadka si aan diyaariyeen imtixaanyo arday kastan in ka dadaalsa arday kale macna ku dhibac badan mas ku buund badina laakiin haddii aad sameeyto ardayda kale wal diyaariyaas arday kan aad hool kale galiyaas imtixaan diyaarina waliba ardayga kale inta ku hoos jaraw mas'uulaga keen ku liidada ardayda kale sababtoo waliba waa imtixaanaadkii gabi ahaanba waliba ma diyaarina haddii diyaari fadina adi fursad in siina hoolo kale dartii oo ku mid hayna wal barashiis umadan dartii yana ka mashquulday daadii hor badati ama kale in sheegada xilliga wal barashaha gudubeen ama wal barashadii iyo darab gareeyeen ama kale ku hireen fursad yar dartiyo waliba hayna fursad naftiida hayna
هوبلا إن شاء الله تذكر برشة دادي هرم كررتي والبرشة ولي باغ نين هاي ولي باغ هاينا فرصة قالية هاينا نفتي ذي هوبلا إن سكول كوين محمد أخسر جيتو دلك تي في بيدبو